تي في كانوا بدلنا والخوف مسوي إنه هني وضعنا نجوا على صاحبه وضعه مع صاحب عادي حكوا يدينا إنه لو ذاك تهنا لك قراعيس أيضا إنترنت الدجيل اللي تكور صاحبه والله وحكي عن لا waxaa marag ma doonta ah in su'aashan oo kale isweydiiyeen macaamiisheena marar badan si aan weydiintaas uga jawaabno waxaan idin soo kordhinay adeegga wadaag oo ah adeeg dadku ay wadaagi karaan xirmooyin internet daatada si sare loogu qaado xiriirka ehelada iyo asxaabta aan haysan internetka adeegan hotspot ka kale miyaa saaxiibo maya adeegan oo ka duwan yahay oo hotspotka waxaa khasab ah qofka ku xiriirinaya internetkiisa inuu kula joogo halka adeegga wadaag qof ka fog ama jooga magaalo kale aad wadaagi kartaan internetkiisa sidoo kale adeegan waxaa wada isticmaali kara adiga iyo laba qof oo ehelkaaga iyo asxaabtaada ka mid ah tusaale qof ehelkaaga oo jooga gobol magaalo ama degmo kale oo aan haysan internet ayaad fursad u siinaysaa inuu helo internet xawaare sare leh war ilaa adeegan waa deeqsinimadii qof ah sida loo furtaa marka si aad iska diiwaan geliso adeegga wadaag garaac xidig 324 gees kadibna dooro nambarka shanaad ee ku xusan wadaag deetana uga shubo xirmada aad rabto nambar 1 si aad ula wadaagto ehelkaaga iyo asxaabtaada kadibna taabo lambar 2 oo ku darso qofka aad rabto inuu internetka kula wadaago aan wax wada wadaagno